fariimo si lama filaan ah loo shaaciyay oo dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaasha Yurub ayaa muujinaya sida Trump uu si cad ugu adkeysanayo in uu Mareykan yeesho Greenland. Trump ayaa sheegay in arrintani si toos ah ugula hadli doono hogaamiyaasha Yurub shirka ka dhici doona Davos ee dalka Switzerland. Fariimahaasi waxay muujinayaan in diblomaasiyaddii qarsoodiga ahayd ay isbedeshay, iyadoo Trump uu doorbidayo inuu arrimaha si fagaar ah u muujiyo. Trump ayaa ku dooday in Denmark aysan awoodin inay Greenland ka difaacdo Ruushka ama Shiinaha, isla markaana Mareykanka uu u leeyahay inuu xakameeyo si loo sugo amniga dunida. Hogaamiyaasha Yurub sida madaxweynaha Finland iyo ra'iisul wasaaraha Sweden ayaa isku dayay inay xaaladda dejiyaan una soo jeediyaan wada hadal. Sidoo kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Trump u diray fariin uu ku muujinayo inuusan fahmin mowqifka Trump ee Greenland, isagoo u soo jeediyay kulamo diblomaasiyadeed iyo wada shaqayn caalami ah. Khubaro siyaasadeed ayaa sheegay in fariimahan la kashifay ay muujinayaan burbur ku yimid habkii hore ee diblomaasiyadda, maadaama wada hadallo gaar ah ay hadda si fudud ugu dhammaan karaan baraha bulshada, taasoo keeni karta xishood iyo jahwareer siyaasadeed.